عويس wanaagsan dhageystayaal waa habeen Arbaca oo Khamiis soo galayso 9 bisha Oktoobar saacada Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 9 fiidnimo qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawiya caalamka waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo sheegay in nidaamka federaaliga lagu soo celin karo qarannimada dalka waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaal kaasoo soo celin kara qarannimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay Turkiga oo dagaal cirka iyo dhulka ku qaaday xoogaga Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya haddaba talaabo noocee ay xulafadiisu ka qaadi karaan Turkiga oo NATO ku jirto xoogga labaad ee dawladaha NATO ku jirta waa ka number 2 militariga hawl yaraan looma dhirbaaxi karo loogama tagi karo Ethiopia iyo Masar oo mar kale isku maandhaafay arinta biyaha webiga Niil iyo qodobo kale oo ciyaaraha kamid yihiin soo saaraha barnaamijka waa Ciise Xaaji Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Xaaji Caddo idin la socodsiinaya Caweys wanaagsan mar kale qodobadaasi oo faahfaahsan inoo dambeeyaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii idaacadda waxaan u diyaaraa Faadimo Macalin Abukar mahadsanid Cabdiraxmaan Turkiga ayaa howlgalkii militari ee uu ku hanjabayay kaasoo ka dhanaa dagaalyahanada Kurdiyiinta ka bilaabay waqooyi bari Suuriya waxaa jira warar sheegaya in duqeymo dhanka cirka ah iyo madaafiic lala beegsaday magaalooyin iyo xaafado ka tirsan Suuriya qiiq madow ayaa cirka isku shareeraya warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in goobaha maleeshiyaadka Kurdiyiinta la beegsaday balse ila laga helay Kurdiyiinta ayaa sheegaya in meelo ay degan yihiin rayid la weeraray hase yeeshee madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsanayay maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee xukuumadda Ankara ay u aqoonsan tahay argagixisada isla markaana aanan loola dan lahayn rayidka Barış Pınarı harekatında görev alan guul ayaan u rajaynayaa geesiyaasheena ka qayb qaadanaya howlgalka nabadda guba mid kastoo ka mid ah wejiga ayaan ka dhunkanayaa waxaan rumaysanahay in iyagoo kaashanaya ciidamada Suuriya ay xoogaga hubaysan ee Turkigu guul ka gaari doonaan PKK, YPG iyo Daacishta ku sugan waqooyiga Suuriya waanuna ku faanaynaa howlgalkeenu wuu cad yahay waanu jebin doonaa marinka argagixisada waxaan rajaynayaa inaan dhisi doono marin nabadeed ujeedadeennuna waxay tahay in la helo aad ammaan ah bu bizim bir güvenli bölge hedefimizdir hogaamiyayaasha Yurub ayaa arintaasi ka walaacsan madaxweynaha guddiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa ku booriyay Turkiga inuu howlgalka joojiyo wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Heiko Maas ayaa isagana sheegay in weerarku uu khatar geliyay xasilloonida gobolka ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday macbad ku yaala magaalada Hele dalka Jarmalka nin hubaysan ayaa xabad ku furay banaanka dhismaha madaxa qowmiyadda Yuhuudda ee dalkaasi ayaa sheegay in qofka weerarka soo qaado isku dayay inuu galo macbadka halkaas oo ugu yaraan 80 qof ay xusayeen Yom Kippur oo ah maalinta ugu mudan tirsi taariikheedka Yuhuudda booliiska ayaa qof laga shakisan yahay xire balse weli kuwa kale ayaa lagu raad joogaa abaalmarinta Nobel Prize ee chemistryga ayaa waxaa la guddoonsiiyay John B. Goodenough, Mr. Stanley Whittingham iyo Akira Yoshino iyagoo lagu ammaanay wax soo saarkooda batariyada ka samaysan maadada lithium ion batariyadan oo ah kuwa khafiif ah dibna loo dabayn karo ayaa haatan maalin walba loo isticmaalaa min teleefanada ilaa gawaarida korontada ku shaqeeya Zimbabwe ayaa 3 jibaar kordhisay qiimaha korontada xilli dalkaasi uu la daalaadhacayo dhaqaale xumo aad u daran oo soo jiitamaysa in ka badan 10 sano sicir kordhintan labaad oo muddo gaaban gudahood ah ayaa ka careysiisay dadka reer Zimbabwe oo horeyba ula dhibtoonayay koronto la'aan cunto yaraan iyo weliba sicir barar jaamacadda Lagos ee dalka Nigeria ayaa xaqiijisay in shaqada ka joojisay bare labaad oo lagu magacaabo Samuel Oladipo kadib baaritaankii ay BBC-du ku samaysay eedeymaha la xiriira in gabdhaha ardayda ah galmo la weydiisto si loo siiyo buundaad fiican Dr. Oladipo ayaa waxaa si qarsoodi ah muuqaal uga duubtay gabar wariye ah oo iska dhigta ardayada jaamacadda dhigata jaamacadda ayaa hore shaqada uga tirtay Boniface Igebengu oo eedeyn noocaasi ah loo jeediyey ugu dambeynna waxaa soo cusboonaaday cabsi laga qabo mustaqbalka wiisha ku nool dalka Botswana kadib markii 9 wiil ah bilii la soo dhaafay lagu dilay dalkaasi Botswana waxaa ku nool wiil ay tiradoodu ka yarta 400 waxaanay dhowaan diiradda saartay wax ka qabashada ugaarsiga lagula kaco wiisha warkii dunidana waa inaga inta Cabdiraxmaan wararkii BBC iyo Faadimo Macalin Abukar ayaa dhageysteen iminkana u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacadeena
aynu ku horeyn madaxweyne farmaajo ayaa sheegaya in ay jirin cidda Soomaaliya qasab ku hogaamin karto oo laga soo gudbay xilligii jahwareerka nidaamka federaalkuna uu yahay mid lagu heshiiyey balse dadka qaar ay si khaldan u fahmeen. golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dib u furmay kadib fasax dheer oo xubnaha baarlamaanku ay ku maqnaayeen. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furitaanka baarlamaanka khudbad ka jeediyay wuxuu khudbadiisa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada, doorashooyinka, dhaqaalaha iyo waliba deyn cafinta. Ibraahim Maxamed Aadan ayaa hadda khadka si toos ah uga jira. Ibraahim cadow wuxuu ahaa kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka labadiisa aqal, waana markii ugu horeysay aan iraahdii dhowrkii saysan ama dhowrkii kalfadhi ee ugu dambeeyey ee ay labada aqal ay ka qayb galaan furitaanka. khilaaf ayaa jiray, khilaafkaas waa la xaliyey. taasina waxay keentay in saaka dugsiga tababarka booliska ee Generaal Kahiye lagu qabto munaasabada furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay fadhiyaan labada guddoon ee labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. sida caadada ah, madaxweynaha ayaa fura kalfadhi kasta marka uu furmayo. khudbad dheer ayuu halkaasi ka jeediyay madaxweynuhu. khudbadiisu waxay u badnayd waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xafiiska joogay isaga iyo dowladdiisa. wuxuu soo qaatay dagaalka ka dhanka al-shabaab, dib u qaabeynta hay-adaha maaliyadda, sidoo kale horumarinta dhaqaalaha. wuxuu sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin waxyaabaha ilaa hadda dastuurka uga qabsoomay. wuxuu sheegay in dowladoodu ay ilaa hadda soo bandhigeen kala xulashada la xiriirta waxyaabaha ay tahay inay kala hadlaan maamul goboleedyada ee ku jira dastuurka, sida arinta maqaamka Muqdisho, dib u habeynta hanaanka maaliyadda ee federaaleynta, cadaaladda iyo asluubta. mar uu arinta ka hadlayna waxa uu yiri waxay dawladdu dhamaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan, ay ka wada shaqayn karaan, sida maqaamka ay magaalo madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka, qaab dhismeedka dawladda, asteynta awoodaha dawladda, hanaanka dawladeed ee federaalka Soomaaliya, hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka, iyo waliba hanaanka federaaleynta maaliyadda. waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaal kaasoo soo celin kara qaranimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay. waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhamaystirka sharciyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka. waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisiyaashaas si degdeg ah si dalka uu gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yiraahdo. madaxweynaha waxaa la filayay in khudbadiisa uu ku soo daro arrimaha khilaafka ee ka taagan Jubbaland iyo sidoo kale khilaafka dowladda dhexe kala dhaxeeya maamulka Puntland, laakiin taa beddelkeeda wuxuu ammaanay shirkii dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ee dhawaantan la soo gabagabeeyay, isagoo sheegay inuu kaasi gogol xaar u yahay in halkaa looga dhaqaaqo in la dhiso Galmudug loo dhan yahay. wuxuu sheegay in nidaamka federaalka uu yahay nidaam ay dadka Soomaaliyeed isku waafaqeen, isla markaana uu yahay xalka kaliya, laakiin dadka qaarkii ay khalad ka fahmeen nidaamka federaalka. nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dawladdeena. ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jirto dawlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. waxaase nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah. waxaan idin xasuusinayaa in mas'uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dawladda federaalka ah. madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo khudbada dheer ee uu jeediyay waxyaabihii kale ee uu soo qaaday waxaa ka mid ahayd arinta xiriirka dibadda ee dowladdiisa. wuxuu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay iskaashi ay la samayso dalalka adduunka. wuxuu si gaar ah u soo qaaday dalalka dariska oo uu yiri xiriir kasta waa inuu noqdaa mid loo siman yahay. waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba. xiriir iskaashi ku qotoma ilaalinta danaha
qaranka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madaxbannaanida iyo ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyadu dhan ah furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka waxaa lagu casuumay diblomaasiyiinta wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ee degan magaalada Muqdisho waxaana ka mid ahaa danjiraha ama wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Iswan oo hadalada uu halkaasi ka jeediyay laga dheehan karay sida ay qaramada midoobay uga fadhiso dowladda federaalka in la soo gabagabeeyo 12 bilood oo soo socda hortabinada u baahan in dalkani ay doorasho ka dhacdo marka la eego hindisa sharciyeedyada looga baahan yahay in baarlamaanka maanta fadhigiisa lixaad uu furmay in uu dhaqan geliyo. These are important for these crucial priorities in the next 12 to 15 months. Furitaanka baarlamankan waxa uu muhiim u yahay sharciyo badan oo lagama maarmaan ah oo la ansixiyo 12 ilaa 15 bilood ee soo socota. Qodobadaasi waxaa ka mid ah doorashada oo ay muhiim tahay in dumarka la siiyo qoondadooda oo ah ilaa 30%. Waxaa kaloo ka mid ah in dib u eegis lagu sameeyo sharciyada xisbiyada, canshuuraha iyo maaliyadda. Dhammaan sharciyadaasina waxay muhiim u yihiin in mudnaan degdeg ah la siiyo si marka la gaaro sanadka 2020 guulo muhiim ah loo gaaro. waxaa kaloo jira sharciyo kale oo muhiim ah oo laga doonayo in baarlamaanka ay ansixiyaan waxaana ka mid ah dhisidda hay'adaha amniga, sharciga xuquuqda carruurta, sharciga gudniinka fircooniga, sharciga tacadiyada galmada iyo sharciga cafiska. The Child Rights Bill, FGM Bill, Sexual Offenses Bill and Amnesty Law. kaasi wuxuu ahaa wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ambassador James Iswan. kalfadhiga lixaad ee maanta furmay waxa uu soo bilowday kalfadhigiisii koowaad bishii December sanadkii 2016 Decemberta soo socotay Decemberteeda kale ayuu ku egyahay waqtiga baarlamaankan waxyaabaha looga fadhiyo ay tahay in muddada sanadka iyo bilaha ee u dhiman inuu qabto waxa kamid ah in uu baasgareeyo ama uu gudbiyo sharciga doorashooyinka oo u noqon doona udub dhexaad in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo wadanka 2020 aakhirkeeda iyo bilowga 2021 sidoo kale waxaa ka mid ah in uu soo gabagabeeyay dib u eegista dastuurka oo looga fadhiyo bisha lixaad ee sanadka soo socda ee 2020 in la soo gabagabeeyay inkastoo shirka maanta laga sheegay in la soo gabagabeeyay 15 cutub ee dastuurka ee dib u eegista lagu sameeyay laakiin baarlamaanka ayay tahay in uu ugu dambeyn ansixiyo taasoo marka dambe la sugayay in uu afti dadweyne helo marka waxyaabahaas oo dhan ayaa cad hor yaala kalfadhiga lixaad iyo kalfadhiyada ku xiga ee baarlamaanka ee muddadiisu ay sanadka iyo dhowrka bilood ah ka hartay. aad buu u mahadsan yahay wariyaheena Ibraahim Maxamed Aadan oo si toos ah khadka telefoonka nooga warramayay isagoo noo soo koobayay khudbadii maanta uu ka jeediyay golaha baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca dhegeystayaasheena fikirkooda ka soo dhiibtay xagga Facebook haddii mid laba aan ka soo qabto Faarax Maxamed Xirsigood oo jooga Gaalkacyo waxa uu yiri runtii aad baan u soo dhaweynayaa hadalka madaxweynaha ee ah in nidaamka federaalka dadka qaar si khaldan u fahmeen wayna muuqataa taasi ayuu yiri. Jaamac Axmed Samakaab oo jooga magaalada Hargeysa hadalka madaxweynaha waa mid dhab ah dhibkuna meesha uu ka jiro waa nidaamka federalismka oo si khaldan loo fasirtay marka waxa habboon ayuu yiri in mar kale dib loo eego ama looga noqdo federalismka dalkaas Soomaaliya. waa fikirka dhegeystayaasheena halkan nagala socotaana waa Turkiga ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay weerar uu ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya oo ay Ankara sheegtay in ay xoogaga Kurdiyiinta ee SDF gacan saarka la leh Mareykanka ay ka dhaqaaqaan halkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay weerarkan in loo gol leeyahay in la abuuro dhul ammaan ah oo maleeshiyaad Kurdiyiinta nadiifka ah shacabka Suuriyana ay nabad ku naaloodaan. Diyaaradaha dagaalka Turkiga iyo ciidamada infantariga ayaa dagaalkaasi ka wada qayb qaadanaya. Xoogaga SDF ee Kurdiyiinta waxay dhankooda ka sheegeen diyaaradaha Turkiga inay weeraradooda la beegsadeen deegaano ay dad rayid ah ku nool yihiin. Ciise Cabdulle ayaa wararkii ugu dambeeyay inoo haya. ciidamada Turkiga ayaa waxay bilaabeen duulaan ay ku qaadeen waqooyi bari Suuriya taasoo horseedayso in iska horimaad toos u dhex maro xoogaga Kurdiyiinta ee gacan saarka la leh Mareykanka.
madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid lagu abuurayo goob ammaan ah oo laga nadiifiyey xoogaga kurdiyiinta islamarkaana ay goobtani noqoto mid martigeliso qaxootiga reer suuriya. kurdiyiinta hogaaminaya ciidamada dimuqraadiga suuriya SDF ayaa laga soo xigtay in diyaaradaha dagaalka ee turkiga ay dad rayid ah weerareen. madaxweyne Donald Trump ayaa si lama filaan ah oo muran badan dhaliyay uga soo saaray waqooyiga Suuriya ciidamada Mareykanka. Turkiga ayaa ah dalka labaad ee ugu ciidamada badan gaashaanbuurta NATO, waxayna xuduudda ay la wadaagaan Suuriya ay ku daabuleen marsii horeysay militari iyo taangiyo aad u fara badan. iyadoo howlgalka uu haatan bilowday, dagaalamayaasha kurdiyiintana waxay ka cabsi qabaan in cagta la mariyo, waxayna haatan iyagoo walaac badan ka muuqda ay abaabulayaan shacabkooda si ay dagaalka ugu qayb qaataan, waxayna ku boorinayaan inay soodinta tagaan oo ay ka caabiyaan iska caabinta ciidamada aan loo barbardhigi karin kuwa Turkiga. madaxa hay'adda caalamiga ee laanqeyrta cas David Miliband ayaa sheegaya in xaaladda halkaasi ay tahay mid cakiran. waxaa jirta dhibaato cusub oo ah in kooxda la baxday dowladda islaamka ay u muuqato inay haatan dib isu soo abaabushay, waxayna ila tahay in xalay magaalada Raqqa ay ka dhaceen weeraro. sidoo kale waxaa jira arrinta kale ah qaxootiga reer Suuriya ee iyagoo markii horeba ahaa dhibanayaasha colaadda dalka Suuriya, kuwaasi oo miciin biday dhanka Turkiga, haatan waxa ay wajahayaan dhibaato aad u weyn, taa oo ah in lagu khasbo inay dib ugu laabtaan qaybo ka mid ah dalka Suuriya oo aysan weligood ku noolaanin. kurdiyiinta ayaa ka barbar dagaalamaya reer galbeedku intii uu socday dagaalkii ay kula jireen ururka isku magacaawday khilaafada islaamka, balse haatan way iska caddahay inay maskaxdooda ka dhex guuxayso sidii awoodda Turkiga ay u wajahi lahaayeen. aad buu u mahadsan yahay ciise xaaji cabdulle oo warkaasi nala socodsiinayay. dhinaca kale, si aanu falanqayn ugu samayno weerarka cusub oo Turkiga ku qaaday deegaanada Suuriya ka tirsan oo ay fallaagada kurdiyiinta ku sugan yihiin, ayaan waxaan goor dhoweyd khadka taleefonka ku waraystay Dr. Sacad Sheekh Cusmaan oo ka faalooda arrimaha caalamka islaamka iyo arrimaha carabta. turkigu isagu wuxuu arrintan u soo gelayaa, wuxuu u arko dana uu leeyahay oo dadkiisa iyo dalkiisu ay leeyihiin, taasoo uu u arko markii uu Mareykanku marquudha uu madaxweynaha Mareykanka sheegay xoogii Mareykanka ee meesha joogay inuu kaba saarayaba oo u eg arrin aanay iyaga iyo Turkiga hore ugu sii heshiin, dabadeedna ay arkeen dee arrintii inay kelidood iyada u taallo. taasi waa mid. talabaad waxa weeye Turkigu weligoodba qolada tan la yidhaahdo YPG, qoladan kurdiyiinta ee dagaalanta waa ka soo horjeeday. marka waxa weeye baryahana hanjabaad buu waday madaxweynaha dalka Turkiga oo wuxuu leeyahay waanu xoreynaynaa dadka, waa ka xoreynaynaa meesha. marka waxa weeye uun bay ila tahay arrin aan ugu ahayn ee la sugayo kolleyba Erdogan inuu wuxuu samayn doono taan la sugayni waxay ahayd warkan uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka ee marqula si degdeg ah xoogii meesha joogay uga saarayo. waa gartay. Mareykanka marka hadda maxay tahay sababta uu difaacayo kooxahan kurdiyiinta oo uu doonayn inuu Turkiga u weeraro ama uu talaabo ka qaado? kurdiyiintu xiriir weyn baa ka dhaxeeyay iyaga iyo Turkiga. qoladani waa qoladii waliba qoladan YPG duu la yiraahdo xisbi dimuqraadi lagu sheego, waa nimankii la dagaalamayay ee ka soo horjeeday ISIS. Mareykankuna iyaga ayuu aad iyo aad u hubeeyay markii hore, doonayna inay dagaalka ku sii wadaan oo nimanka ay jibiyaan. nimankii la jibi la oran jiray Daesh, yani laba filaynin arrintan inuu madaxweynaha Mareykanka subax qoro intuu waabinto intuu Twitter qoro yiraahdo caynkan iyo xoogaygii meesha waa ka saaraya. xoogaaga meeshaada ka saarto dee nimankii gacanta siinaysan waa qaawan yihiin. marka Turkigu waa ka faa'iideysanaya inuu soo galo iyagana baabiyaabo doonaya. marka talaabooyinka uu Mareykanka haddaba uu Turkiga ka qaadi karo maxay noqon karaan, inkastoo horey uu madaxweyne Trump ugu hanjabay dhaqaale iyo arrimo noocaas ah? horta waa la eegi doonaa waxa uu waagu ku bariyo beri iyo saa dambe, laakiin horey tan oo kale u soo martay labada dowladood dhexdooda talaabooyin weyn uu ka qaadi karaa Mareykanku ma jiro oo aan ahayn taa uu madaxweynuhu sheegay uu yiri dhaqaalahaas uu ka dhigaya. intaa wax ka badan uu ka samayn karaa ma jirto runtii. Turkiga iyo Mareykanka dhinaca marka dagaaladan iyo waxyaabahan la isku fahmi lahay markaan aan ka soo noqono, xulafaysi ayaa ka dhaxeeya, waxay ka wada tirsan yihiin ururka gaashaanbuurta NATO. sidaan la soconana Turkiga laba saldhig oo waaweyn oo dhinaca ciidamada cirka oo
nato uu leeyahay ayaa ku yaala marka haddii xiriirkoodan iyo arrimahan hadda khilaafka keena ay sii socdaan sidee u saameyn kartaa marka isxulafaysiga ama gaashaanbuurtii natoba hadday sii socoto dee uma qurux badnaa isxulafaysiga hase ahaatee waxa weeye berri maxaa waagu ku beryayaa arrintana siday noqoto waa la arki doonaa 2 maalmood 3 maalmood 4 maalmood ee soo socota xiriirka turkiga ka dhexeeya iyo maraykankuna waa mid gun dheer weeye mid subax qura inta la cadhoodo laga dhaqaaqi kara maaha horena madaxweynaha maraykanku wuu hadiday madaxweyne Erdogan oo umuro badan oo kala jaad oo isku khilaafeen buu ku hadiday haddana wax weyn oo la arkay kama qaban xaqiiqadu waxa weeye haddii ay arrintu siday iminka tahay sii dhaafto oo sii xumaato markaa bal weynu eegi doonaa labada qolood siday u kala fakeraan laakiin iminka Turkiga oo NATO ku jirto xoogga labaad ee dawladaha NATO ku jirta waa ka number 2 militariga waxa European-ka ee ku jira Ingiriis iyo Faransiis iyo waxa xoogoodu ka labaad ma noqon karo waa Maraykanka laba waa ka Turkiga hawl yaraan looma dhirbaaxi karo loogama tagi karo aad buu u mahadsan yahay Dr. Saad Sheekh Cusmaan oo ka faalooda arrimaha caalamka islaamka iyo arrimaha carabta dhinaca dhageystayaasheena haddii mid ka mid aan kasoo qabto fikirkiis ka dhiibtay qodobkan Sakariya Maxamed Fuuxaali oo kasoo qoray Burco waxa uu yiri weerarka uu Turkiga ku qaaday xoogaga Kurdiyiinta ee ku sugan waqooyi galbeed ee Suuriya waa weerar laga sii shaqeeyay hase yeeshee ayuu yidhi waa laga horsugi doonaa qaabka ay xukuumadda Washington uga falceliso weerarkaasi waa fikirka dhageystaheena iminkana Puntland magaalada Boosaaso ayaa la sheegay in uu ka dhacay heshiis la isku afgaran waayay oo xalay ku dhexmaray wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni arrinta la isku afgaran waayay ayay warar xog ogaal ah sheegayaan in ay tahay sidoo madaxweynaha Puntland uga baaqan lahaa caleemisaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo aysan dowladda federaalku aqoonsanayn doorashadii lagu soo doortay Axmed Caawil Jaamac ayaa warkan Garowe ka soo diray wasiiradan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay habeenkii xalaha ay ku dhaxeen magaalada Boosaaso kulamo ay la yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada ila lagu kalsoon yahay ayaa BBC-da u sheegay in ay ugu weynad waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland u dhaxeeya xalkiisa sida lagu wajahayo waxa kale oo madaxda federaalka ka timi ay ku naawilayeen in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo wafdiga uu hogaaminayo ay ka baaqsadaan magaalada Kismaayo oo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland lagu caleemo saarayo kaasi oo aysan aqoonsanayn dowladda federaalka ee Soomaaliya Deni ayaa la tilmaamay in uu soo dhaweeyay wada hadalka dowladda federaalka iyo kan Puntland dhexmaraya waxaa kale uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ilaha BBC-da ay soo xiganaysa ay u sheegeen in uu ku gacan seeray Kismaayo baaqashadeeda madaxweynaha Puntland maanta ayuu ka soo dhoofay magaalada Boosaaso haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Garowe iyadoona diyaaradii u qaadi lahayd magaalada Kismaayo maalinta biri ah ee haatan ku sugan tahay magaalada Garowe madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni wafdiga uu hogaamin doono waxa ay gaarayaan ilaa iyo 50 xubnood oo isku jira